inta uu qof ibnu aadam ahay kursi meel cidla dhigto inuu indhihiisa isku qabto isagoo maskaxdiisa ka tababar qaadanaya shaqadii uu jir ahaan u qaban lahaa waxay keeni kartaa natiijada kuwa jir ahaan shaqada u qabanaya ama waa ay ku dhowaan kartaa. daraasadaha qaar waxa ay muujinayaan in xitaa ay ka fiicnaan karaan kuwa jir ahaan u qaban. taas waxay la micno tahay in khayaal ahaan ugu tababaran karto maskaxdaada. waxaa lagu tiriyaa khayaalka awoodaha kuwa waaweyn Allah subxaanahu wa tacaala ugu deeqay aadamaha. khayaal marka aan leenahay waxaanu la jeednaa inaad maskaxdaada ka sawiran karto wax aan dhicin sidii ay u dhici lahaayeen. tusaale ahaan adigoo duuliye ahayn ayaad ka sawiranaysaa adigoo diyaarad duulinaya. waxaa hubaala inaad isweydiinaysid caddayn ama sida arrintan ku dhacday. sidaa daraaddeed aan soo qaadano hal tijaabo oo laga sameeyey arrintan. group A waxaa loo tababaray 100% sida caadada tababar jidhka. group B waxaa loo tababaray 75% tababar jidh ahaaneed 25% maskaxaaneed yacni maskaxda ayuunbay ka sawiranayeen inay tababar ku jiraan. group C waxaa loo tababaray 50% jidh ahaaneed 50% maskaxaaneed. group D waxaa loo tababaray 75% maskaxaaneed 25% jidh ahaaneed. haddaba waxa yaab ku noqotay khubradii in gruubkii ugu dambeeyay ee group D uu ku guuleystay biladihii ugu badnaa ee tartanka iyagoo ka hormaray in badan kuwii jidh ahaaneed loo tababaray in ka badan maskax ahaan ama la midaba. taas macnaheedu waxa weeyaan in khayaalka ama tababarka lagu sameeyo maskaxda uu ka xoog badan yahay ka jidh ahaaneed loo sameeyo. su-aashan hadda isweydiinaynaa waxay tahay inaan maskaxdayda wax ka sawirto oo aan la maanta hadba dhinac ula mushaaxo riyaan wax faa'iido miyaa igu jira ma wax midho dhal ayaan ka helaya. jawaabtu waxay tahay haa. daraasado badan oo cilmi nafsi ah iyo tijaabooyin badan oo la sameeyey si gaar ahiba waxay tusinayaan in khayaalka lagu xaqiijin karo wax badan in lagu gaari karo hawlo aad u culculus iyo guulo aan caadi ahaynba. bal aan soo qaadano hal qiso oo ku saabsan awoodda khayaalka. Colonel George waxa uu ka tirsanaa ciidamada cirka ee Mareykanka kuwaas oo duulimaad ku qaaday dalka Vietnam sanadii 1955. nasiib darrada diyaaradii wada waa la soo riday waxaana loo qabtay maxbuus ahaan waxaana la geliyay qol sanduuq ah waxa uuna ku jiray 7 sannadood iyo bilooyin oo maxbuus ku ahaa. George waxa uu jeclaa inuu ciyaaro kubadda golfka waxa uuna rajeynayay inuu bilaabo marka uu soo noqdo. George jeelka ciriiriga dhexdiisa intuu ku jiray waxa uu sanado badan ku ciyaaray kubadda golfka. khayaalkiisa markii la soo badbaadiyay 7 sano kadib ee lagu soo celiyay dalka Mareykanka isla wiig kadib waxa uu go'aan ku gaadhay inuu ka qayb qaato tartanka ciyaaraha golfka taas oo dad badan ka yaabisay. waxaase ka sii yaab badnaa inuu kaalin aad u sareysa ka galay tartanka ciyaaraha taas oo warbaahinta iyo dadkii ka yaabay. 7 sano uu qolka dhexdiisa kubadda koleyga maskaxan ku ciyaarayay waxayna keentay mid ka mid ah natiijada kuwii 7 sano uu soo tababaranayay. daraasado laga sameeyay arrinkan ayaa iyaguna soo bandhigay natiijada qisadan oo kale. haddaba bal adigu arrin aad jeceshahay inaad ku guulaysato intaad meel kursi cidla dhigato ku tababar qaado maskaxdaada kadibna hadhow insha Allah nala wadaag natiijada fikradaada. samayso higsi himilo iyo ahdaaf aad rabto inaad mustaqbalka gaadho kuna guulaysato insha Allah. kadib ku dadaal iskuna day inaad tababar ku qaadato awoodda khiyaaliga taas oo qayb laxaad ka qaadan karta kaana caawin karta xaqiijinta iyo gaadhida ama midho dhalinta ahdaaftaada iyo himilooyinkaaga. nolosha aadamuhu kama maarmato in mararka qaar iska gasho xaalado aan munaasib ahayn waqtiga la joogo ama suurtagal ahayn mustaqbal dambe ma ahane.